maamulka garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdille Xasan ee magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa dib u habeen ku sameeyay qaar kamid ah qalabka garoonka qiibihiisa kala duwan. Qalabkan dib u habeenta lagu sameeyay ayaa waxa ay kala yihiin qalabka saadaasha hawada iyo qalabka hagida diyaaradaha. agabka la soo gaarsiiyay garoonka ayaa waxa keenay hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed ee dowladda federaalka Soomaaliya wuxuuna qalabkan sare u qaadi doonaa shaqada ka socota garoonka. xubnaha ka socda hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada waxay tababar la xiriira hab maamulista qalabkan siin doonaan shaqaalaha ku howlan shaqadan. Maxamuud Sheekh Cusmaan oo ka socda hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyay qalabkan iyo waxa uu yahay. aniga waxaan ka nimaday magaalada Muqdisho waxaan loogu soo diray inaan halkan aan shaqo ka qabano qaybta saadaasha hawada oo markii horeba ay qalab hore u yeelay inkastoo qalabkii muddo badan markuu shaqeeyay aan wax dayactir lagu sameeynin qalabkeen inaan dib aan dayactir ugu sameeyno iyo qaybo kale oo ka sii muhiimsan oo aan rabno inaan ku sii xirno oo ugu horeyso qalabka asana hagida diyaaradaha lagu siiyo qaybta saadaasha hawada arintaas ayaan u nimaday waxaan rabnaa haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah ta'ala inaan labadaas qalab aan sida ugu fiican oo hawsheedan oo macnaha si fiican u hirgasho markaan qalabkaas xirna kadib insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in shaqaalaha ka shaqeeyo taawarka iyo intii kale oo la awoodi karo inaan tababar aan siino sidii qalabkaasi ay uga faa'iideystaan ugu shaqeey lahaayeen. Maareeyaha garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdille Xasan ee magaalada Kismaayo Cabdullaahi Aadan Maxamuud Jegadoon ayaa ka warbixiyay muhiimadda qalabkan iyo waxa uu ku soo kordhin doono shaqada ka socota garoonka. waxay ay tahay sharaf aad u weyn saaka in aad nala joogtaan ugu dambeyntii imaantikiinii shalay saakana aan halkaan iskugu nimid in aan u diyaar garowno hawshii aad maartay u imaateen qabashadeedii booqashada wafdigan gaarka ah wuxuu quseeyaa ama uu ku saabsan yahay barnaamij aad muhiim noogu ah garoonkan adeega maartay uu bixiyo ku soo kordhin doonta isbedel iyo horumar dadku ay dareemi karaan maxaa yeelay garoonkan diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulle waa garoon caalami ah garoonkii labaad marka laga reebo garoonka Aadan Cadde wuxuu noqonayaa garoonkii labaad dhanka adeeg bixinta sida shacabka Soomaaliyeed dibid iyo dalba ay ugu tiirsan yihiin wuxuu noqonayaa garoonkii labaad ugu baaxadda weyn adeegiisa dadku si weyn ay ugu tiirsan yihiin sida awgeed muhiim bay inoo tahay in maaragtay sare loo qaado adeegiisii oo qalabka garoonkan uu u baahan yahay dhanka hagida diyaaradaha dhanka saadaasha hawada iyo dhammaan adeegyada kale ee muhiimka ah gaar ahaan qalabkan casriga ah Maxamuud iyo wafdigiisii ay inoo keeneen waxaan rajaynaynaa in isbedel iyo horumar dhabtii aan hiigsanaynay oo la dareemi doono in maartay uu soo kordhin doono gaar ahaan dhanka saadaasha hawada oo baahi aad u weyn loo qabo diyaaradaha hawada ku jirana maartay adeeg u fududeyn kara. Tayada qalabkan ayaa mid wax badan ka bedeli doonto shaqooyinka iyo howlaha ka socda garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Abshir Cabdirashiid Xuseen, Jubbaland TV, Kismaayo.